in laga gaaro xukun iyo soo afjarid arrimaha qaar ee casrigeennaan jooga ee qadiyadaha ummadda waxay u baahan tahay ragannimo iyo dadnimo dhab ah taasoo aan ku dhisnayn isxayisiin ama qofku shaqo usa lahayn inuu gacmaha la galo hase yeeshee waxay isu beddeshay qadiyadaha qaar ee ummadda in laysku keeno waxyaalo iska soo horjeeda arrimo aan islahayn waxay doonayaan ragga qaarkood inay isu keenaan habeen iyo maalin dayax iyo qorrax inay isu keenaan wax iska soo horjeeda ayagoo markaa iska dhigaya inay xallinayaan qadiyadaha ummadda ragga qaarkood waxay iska muujinayaan ragannimo iyo in ayagu hawsha qaban karaan oo ay yihiin howlkar daahirkooda markaad fiirisid iyo muuqaalkooda waxay iskaga kaa dhigayaan ka'annamaa inay yihiin malaa'ig ilaahay soo diray tabaaraka wa tacaala kuwaasoo dhowrsoon kana dhowrsoon wax kastoo khalad ah qaarkood markaa waxay saarayaan eedda iyo arrin kastoo margata haween iyo jinsiga kaley saarayaan ka'annamaa ayagu aad moodidba raggaas inay yihiin malaa'ig marka bannaanka loo baxo iyo bulshada dhexdeeda dadka waxay u muujinayaan inay yihiin raggii dhabta ahaa ee la raadinayay ee loo soo celin jiray qadiyadaha waaweyn ee isku margaday inay kala furaan dhaqankaasi waxay iska muujinayaan markay bannaanka joogaan laakiin gurigooda markay ku noqdaan waxay noqonayaan oo laabanayaan gurigana tegayaan ayagoo aad moodid shayaadiin hase yeeshee waxay iska dhigayeen markay bannaanka joogeen inay yihiin malaa'ig markay guriga iyo carruurta iyo reerka ku noqdaanna ka'annamaa inay yihiin shayaadiin ayaad arkaysaa in badanoo ka mida waxay tilmaamayaan ama ay sheegayaan inaysa ayagu ku dadaalin muuqaalka guud laakiin qofka jawharadiisa ama ragannimadiisa dadnimadiisu ay tahay gudaha mid baa laga yaabaa inuusan ku dadaalin muuqaalkiisa guud markaad weyddiisanna ku dhahaya ujeeddadu muuqaalka guud ma ahee waxaa weeye gudaha waxa ku jira iyo qofku wuxuu ka samaysan yahay in badanoo marka bulshada ka mid ah waxay fiirinayaan in badanoo dadka ka mid a madharkooda guud iyo muuqaalkooda guud iyo siday yihiin kadib waxbay ku dhisayaan kadib waa khiyaamo iyo khidaac iyo in laysku dego makri ayaa imaanaya kadib uu qofkii yidhahda saan ooma moodayn qofkan laakiin markuu bannaanka ka joogayay kor ka fiirinayay qof buu u haystay laakiin markuu dhex galay ayuu ogaaday inuusan qof ahayn rag badan waa rag markay bannaanka joogaan dadka la mucaamalanaya bulshada waa libaaxiyo laakiin gurigooda iyo xaaskooda markay u imaadaan waa shayaadiin afxumada iyo ficil xumada siday wax u fiirinayaan iyagoon dareensiinayn xaaskooda guriga u joogta ee quruxda badan inay tahay haweenay isagana uu yahay rag guriga markuu ka baxo waa nin rag ah laakiin guriga markuu soo galo waa qof finish ah oo daahirkii iyo muuqaalkii laga filayey aan ahayn dumar badan raggay suuqa ku arkayaan iyo bannaankay ku arkayaan kadib waa fiirinayaan waxay moodayaan inuu yahay kii ragga laga doortay waa dooranayaan waa guursanayaan guriga markay iskugu tagaan horaa loo yidhi 40 mitir ayaa lagu ogaadaa ceebtaada iyo ceeb la'aantaada waxaa kaa sheekayn kartana waa xaaskaada kadib waxay ogaanaysaa runta uu yahay qofkan koobi inuu ahaa markuu nolosha bannaanka matelayey ayay ogaanaysaa laakiin xaqiiqda guriga lagu ogaaday haweenka qaar waxaa laga yaabaa inay arkaan nin gar quruxsan leh dharkii diinta iyo sunnada ka muuqato qaarkood waxaa laga yaabaa in arkaan nin tusbax wato tasbiixsanaya ay yidhaahdaan kan waa weli ama waa kii wanaagsanaa ee xuquuqdaada iyo dadnimadaada garanayay inay haweenku qaarkood nin noocaas intay arkaan saa moodaan ayaa laga yaabaa oo madharkaas iyo muuqaalkaa uu khayaabo dadka qaarkood xadgudub iyo kabadbadis ayay ku dhaceen xataa labiskooda xataa faragashiga arrimaha qofka kale ama shakhsiga kale xataa ay ku xeeldheeraadaan ama ay ku xadgudbaan cuntada iyo sida loo cunayo waxa la karsanayo waqtiyada kala duwan wax la karsanayo ay ku xadgudbaan oo ay ka badbadiyaan noloshoodu marka waa nolol ayadoo dhanba ka badbadis ah waa nolol xisaab aan ku dhisnayn waa nolol aan ku taagnayn tiir weyn oo sidaa u awood badan waxaa laga yaabaa inay diyaariyaan cuntooyin kala duwan oo noocyaa dad ay ku marti qaadaan ayagoo ay cunayaan ay diyaarsadaan laakiin cuntada inteeda badan hadhow qashinka lagu daro si loo yidhaahdo ree hebel ama qoyskaas ama reerkan
waa dad xoolo haysta maca daalika iyadoo ay tahay xoolahan nimcada ilaahay ee la rabay inuu ka mahad celiyo cuntada wada karsado inteeda badan 3 meelood 2 meelood ka mid ah qashinka iyo bannaanka ay aadayaan laakiin bannaanka markuu asagu u soo baxo wuxuu iska dhigayaa nin aan xad gudbayn oo noloshiisu ay ku socoto nidaam wanaagsan sida asagoo sameynaya waxaad arkaysaa walaalihiis kale oo baahan oo raadinaya waxay nafta ku ceshadaan oo raadinaya waxay cunaan asagana sidaas uu sameynaya asagoo iska gadaya dad kale iyo daris soo ku ciyaaraya xoolaha laga yaabo xoolaha inay dhamaadaan hadhowna cabaadkiisa iyo calaacalkiisa laga fariisan kari waayo isku bedelo nin tuugsada ama qof wax weydiista dad kale idan anagu waxaan ku noolnahay waqti la kulminayo waxyaalo iska soo horjeeda muuqaalka qofka iyo uurkiisa waxa ku jira waa kala duwan yihiin dhaqanka xaaskiisa kula dhaqmayo iyo dhaqanka dadka kale waa kala duwan yihiin dadka kale waa u jilicsan yahay waa wanaagsan yahay xaaskiisa waa ku adag yahay gabadhu ninkeeda waa ku adag tahay oo waa ku qallafsan tahay ama ragga kale iyo dumarka kale waa u jilicsan tahay carruurteeda waa ku adag tahay asaga carruurtiisa waa dayacay laakiin marka muuqaalka guud ka fiirino waa dad wanaagsan baad is leedahay oo noloshooda ka fakaraya annagu waxaynu noolnahay waqti laysu keenay nifaaqii camaliga ahaa iyo nifaaqii uurka ku jiray nolosheennaanu ku kulminay wax iska soo horjeeda dab iyo biyo oo kale baanu kulminaynaa dab iyo baasiin baanu isku daraynaa kadibna dadka waxaan ka gadaynaa inaan nahay dadkii ugu fiicnaa dadka nolol ahaan saacadda nooca ugu dambaysaan gadanaynaa saacadaha qacmaha noogu wada xiran goor sheegtada waxay noogu xiran tahay qacanta laakiin waqtigeenna kuma xisaabtanno waan baabi'inay mala yacni baan ku baabi'inay waa jecelnahay filimaanta markaynu daawanayno dhowla caddaynta dadka qaarkood ay samaynayaan inaynu iska yeelno laakiin dadka kale ooma dhowla caddayno laga yaabaa dadka shaqada la shaqeeya inuu u dhowla caddeeyo gurigiisa iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa markuu soo noqdana afka u xirto nolol waxaan ku noolnahay marka iska soo horjeeda qofkiibaa wuxuu kulminayaa intaasoo ashyaa iyo arrimo oo iska soo horjeeda waxaa laga yaabaa qaraabadaadii walaalaha inaada dhowla caddayn tusin laakiin ummado kale laga yaabo oo dhowla caddaysid muxuu rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam dhowla caddaynta aad ku dhowla caddaysid wejiga walaalka waa sadaqa walaalayaal marka waxaynu noolnahay wakhti nala ku khiyaamayo muuqaalka guud qofka muuqaalkiisa guud aan wax ku dhisayno nolol noocaasaan ku noolnahay wakhti noocaasaan ku noolnahay waa wakhti nifaaq khidaac makri iyo xumaan u fakar qofka kale ee walaalka aad ugu fakaraysid inaad xumaan ku samaysid aad xasidid aad makri iyo khidaac u samaysid nolol waxaan ku noolnahay aynu kulminay arrimo badan oo iska soo horjeeda oo aan isqaadan karin waxaad arkaysaa arrimahaas inay ku kulmeen hal qof oo keliya